ونستعين ونستغفر ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدوميها بانك ماي بانك يتيم كيسة يشقالها ماي بانك قدوميها ربط كنعسي السوق بعد قدوميها دقمدا يخشد يكوحيجينا ديسة يتيم كدقمدا ورياش يا أصحاب كسوق يبقى شيء حفلتنا نروح ضمن برنامجنا والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعد waxaan rabaa marka u horeysa inaan u hambaliyeeyo my banki oo runtii ah farci labaad ka furay suuq bacaad oo runtii bangi cusub oo maxaan ku raahdaa waliba rag mutacalimiin ah oo bangiyo hore uga soo shaqeeyay ama soo dhisayba ay Germanka waxaan rajaynayaa khibradooda iyo aqoontooda inay ka faa'iideystaan oo loogana faa'iideeyo suuqeenan suuq bacaad waxaan rajaynayaa inaan guuleysano insha Allah hadii la yiraahdo waxaan rabaa my bank kadib ganacsateena suuq bacad inaan la hadlo oo gudoomiye suuq bacad oo nala joogo inaan bangigu sidiisa wuxuu ka faa'iideystaa waxa way inuu hantina idin hayo hantina idinku soo celiyo marka waxaan ka codsanaynaa ganacsatada suuq bacad inay bangiga la falgalaan oo deposit keenaan oo maal gashtaan oo wax ka dirsadaan ganacsatada Sember waxa loo fududeeyaa waxa ay dibadda u diranayso iyo waxa ay dalka gudihiisa uga shaqaysanayso iyo maxaan ku raahdaa keeping kaba sababtoo ah storage-ka bangiyadu iyaga ku fiican inay noo hayaan waa ogtiin magaaladan daba ka dhaca dib badan dhaca waxa fiican lacagtu inay mar walba khasnadaha bangiyada inay taala qurux badan marka ganacsatada Soomaaliyeed khaasatan ganacsatada suuq bacad waxaan ku boorinaa bangigan hadaan bangiyadu anaga la shaqeyn oo anagu aan maal gashan bangiyadu ma horumarayaan ganacsiguna wuxuu ku maalgalaa wuxuu ku horumaraa in bangiyadu ay dib normal galiyaan anaga ay lacagta nagu soo celiyaan marka waxaan rajaynayaa ganacsatada suuq bacad qurux badan maanta la joogta ina barnaamijkaasi aad gacan weyn ka geysan doontaan soo dhaweysan doontaan waxaan si gaar ugu mahadcelinaa Mr. Abdullahi Nuure oo ogtihiin inuu yahay khabiir aad uga xeel dheer dhinaca bangiyada iyo waliba xawaaladaha oo isleeyahay si oo degdeg qof cusub oo la baranayo maanta ma ahin Abdullahi adigana waxaan rajaynayaa ganacsatada inaad gacan siiso insha Allah adiga Xaaji Cabdiba waxaan si gaar rabaa inaan ula dardaarmo gudoomiyaha degmada Yaaqshiid oo runtii degmadan oo degmo weyn ah oo marka loo fiiriyo degmooyinka maxaan ku raad Soomaaliya Muqdisho ay degmada saddexaad ama tan labaad ay noqonayso gudoomiye degmadan ganacsatada suuqa labaad degan waliba suuq bakaaruhu degmooyin badan oo ka dhaxeeya laakiin tan hal degmo kaliya isku taala waxaan ka codsanayaa ganacsatada in adigana aad gacan siiso wax badanna ay kala shaqeyn doonaan anaguna aan saa aragtay hadda wadooyinkaaga dhan waa la dayactiray waana ganacsatada ku dayactirtay si badan waa kaaga abaal sheegtaan laakiin haddana waxaan rabnaa inay isku dhawaadaan maamulka suuqa iyo maamulka degmadaba iyo bangiyada wax dhammaan inaan isku xirnaan aad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambaliyo my bank insha Allah guuleysta. Assalaamu calaykum.